أروى البحافظة ولا كلها وسوق على تجا وحالة دوما بريس وحالة دونتا خضار يهيلب يلا سوي بسده قفك مركو سيت تجا بجاج برعة مركو صانع قنينا بجاج برعة لو تشير على وخرج وكوس فولي لكن أنت أدو ريلنا بعد هيدي جروسرية حال مالي باللي بسده وذوك تويجي ذاتك يعني سبتي أما تبعوه كلا تيجي ساسوقة وحي تدوع شادو بهنيت بعد سوق بسني تدوع شو نول كي كعب بحلها مجاشته بس كافتو ميسا هل كان تاس صورتقال ما هو قبله ده واحد روان سوق ينسي مرانو وشانس كليه ويلش كوار كي كرانو مركا السلام الله عليكم مركو غوريسا كسو دوادا نصري channel 999 waxaan idinku codsanayaa inaad channelkeygana aad subscribe saartaan barteeda TikTok-gana aad ku soo biirtaan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida wuxuu dadka Soomaaliyeed amba haweenka Soomaaliyeed wuxuu ku sheegay inay u khaasawi tagaan yani markay soo adeeganayaan dadkan wuxuu kula taliyay inay isbuucii ay adeega soo dhigtaan oo waxa weeyaan ay adeegaasi ay soo dhigtaan oo ay talaagada ku ritaan laakiin saanu waxaan leeyahay madaxweynuhu waxaan warba u haynba xaaladda waddanka ka jirta Cabdisaaq Hareeri oo dhinaciisa fadhiyana isna runtii u sheegi maayo iska qoslaya anigu waxaan leeyahay xaaladda dadka Soomaaliyeed haysata iyo haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed ee ku nool Soomaali galbeed baan warba u hayn dadkan waa dad iska danyar ah maalintii intay soo helaan bay waxay ku soo adeegtaan Ingiriiska ayuu waxweeyaan madaxweynuhu tusaale ahaan u soo qaadanaya in dadka Ingiriiska ku nool iyo dadka Soomaalida ah ee jigjiga ku nool isku mid maaha isku nolol maaha isku dakhliina maaha inta yara soo gasha ayay iyagu intay suuqa tagaan ay ku soo adeegtaan marka madaxweynuhu madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida arintaa uu haweenka Soomaalida ku yiri runtii waa arrin aan meesha qaban waa iska nin uun iskaga jira madaxtooyadaas oo iska dacdaacaya oo xaaladda waddanka isagoo aan warba u haynba ta kale haween Soomaaliyeed in madasha intaa leeg waxa weeyaan wax lagaga sheegaa mid dhaqankeena ku fiican maaha